kulankani oo ahaa kii ugu dambeeyay ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo uu la yeeshay golihiisa wasiirada xilku ka dhamaaday ayaa madaxweynaha la filayo in maalinta bariya uu talada dalka wareejiyo. waxa uu kulankaasi uu la qaatay golihiisa wasiirada uu ahaa mid uu ku sagootinayay. markii kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay una sharaxay ujeedada kulankaasi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Abdullaahi Maxamed Daahir Cukuse iyo waxa halkan fadhiya xubnihii golaha wasiiradii wasiir ku-xigeenadii iyo wasiiru dawlayaashii. kulankan ama muuqaalkani waxa uu ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee u dambeeyay oo madaxweynuhu uu nagu sagootiyey waxaanu nahay xisbiga kulmiye annagoo xubnaha oo xisbiga kulmiye ah maanta waxaanu dhammaystiranay xilkii aanu haynay xukuumadda oo berrito marka uu madaxweynuhu xilka wareejiyo ayuu nagaga egyahay. berri haddaaya ayuu xilkaasi nagaga egyahay markuu madaxweynahana magacaabay waqti xilka uu wareejiyo. madaxweynaha soo cusubna waxaanu nahay isku xisbi, waxaanu nahay mudanayaashii ama golihii soo saaray ee ka dhigay madaxweynaha cusub. waxaanu nahay golihii ku guulaystay inuu xisbigu laba doorasho madax ka noqdo dalka oo uu hoggaanka dalka ku guulaysto. waxaanu ummadayada iyo shacbiga iyaga uga mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd ee xukuumaddaasi ula soo shaqeeyeen. waxaanu annaguna isku bogaadinaynaa tacabkii tirada badnaa ee aanu la nimi iyo waxqabadkii sababay in kulmiye mar labaad la doorto. dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ee maalinta bariya talada dalka wareejinaya ayaa ku sagootiyey kuna sharfay Abwaan Xasan Dhuxul Laab Saalax shahaada sharaf, taasi oo la sheegay inuu ku mutaystay koriqaadista uu ku sameeyay. waxaana arrintaasi ka hadlaya oo faahfaahin ka bixinaya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Abdullaahi Maxamed Daahir Cukuse. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxa uu saaka xafiiskiisa ku qaabilay Xasan Saleebaan Dhuxul oo ka mida abwaanada cahdigan ugu caansan, oo ka mida abwaanada da'da yar ee hal abuurka la yimi dadkuna ay aad u jecel yihiin. madaxweynuhu wuxuu uga mahadnaqay waa ogeydeen fanku isagoo sii dhimanaya oo burburkii Soomaaliyeed ka mid noqday oo la waayay hal abuur dalka gudihiisa jooga oo wax cusub curiya ama suugaan cusub la yimaada ayay mar kale sida ay Soomaaliland geeska Afrika uga tahay cadceed soo baxday mar kale Hargeysa ka bilaabmay fanki markii kooxda xidigaa geesku ay timi. maantana waxaa jira kooxo badan oo fanka ah oo wasaaradda warfaafinta la shaqeeya. madaxweynuhu isagoo sharafka u haya ayuu shahaadada ku maamusay Xasan Saleebaan Dhuxul oo ka mida abwaanada da'da yar. Xasan Maalidar, telefishinka RTN, magaalada Hargeysa.